qofna kuma aaminsana ilaa aad guulaysato. Nolosha waxaa ka mid ah xaqiiqo adag oo dad badan ay la kulmaan. Waa xaqiiqada ah in dadku marar badan aysan rumaysan doonin marka aad bilowga joogto. Waxay shaki gelinayaan riyadaada, qorshahaaga iyo awooddaada. Laakiin isla dadkaas ayaa mararka qaarkood noqda kuwii ugu horreeyay ee ku hambalyeeya marka aad guul gaarto. Marka aad leedahay himilo weyn, waxaa dhici karta in dad badan ay ku arkaan qof riyoonaya oo aan xaqiiqada ku noolayn. Waxaa laga yaabaa inay ku yiraahdaan tani ma suurtoodo ama adigu ma awoodi kartid. Ereyadaas waxay dhaawici karaan qalbiga qofka, gaar ahaan haddii ay ka yimaadaan dad ku jecel ama kugu kalsoon. Laakiin waa inaad fahamtaa in dadka badankoodu aysan arkin waxa aad aragto. Ma dareemayaan rabitaanka ku jira qalbigaaga. Ma yaqaanaan awoodda aad leedahay ama dadaalkaaga aad u diyaar tahay inaad bixiso. Sidaas darteed, ha ka filan in qof walba uu ku fahmo ama ku taageero. Dad badan oo maanta dunida caanka ah ayaa soo maray wadadan. Waxaa jiray waqti aan cidina rumaysnayn inay gaari karaan meesha ay maanta joogaan. Waxaa lagu qoslay, lagu dhaleeceeyay, laguna tilmaamay kuwa waqtigooda luminaya. Hase yeeshee, ma aysan joojin socdaalkooda. Waxay sii wadeen shaqada, waxayna aamuseen ilaa ay natiijooyinka muujinayeen. Guusha dhabta ahi kuma timaado hal maalin. Waa safar dheer oo u baahan dulqaad, adkaysi iyo kalsooni nafeed. Waxaa jiri doona maalmo aad dareemayso daal. Waxaa jiri doona waqti aad isweydiinayso in aad jidka saxda ah ku socoto. Laakiin qofka guulaysta waa kan sii socda xitaa marka uu daalan yahay. Mid ka mid ah khaladaadka ugu weyn ee dadka qaarkood sameeyaan waa inay joojiyaan riyadooda. Sababtoo ah dadka kale ma aaminsana. Haddii aad sugto qof walba inuu ku taageero ka hor intaadan bilaabin, waxaa laga yaabaa inaadan weligaa bilaabin. Mararka qaarkood, taageerada ugu muhiimsan waa tan aad naftaada siiso. Aaminaadda nafta waa furaha guusha. Haddii aad adigu naftaada aaminto, waxaad awood u yeelanaysaa inaad ka gudubto hadallada xunxun iyo niyad jab. Dadku waxay arkaan natiijada, laakiin ma arkaan dadaalka qarsoon ee ka dambeeya guusha. Waxay arkaan geedka weyn, laakiin ma arkaan sanadihii uu xididku dhulka hoostiisa ku sii xoogaysanayay. Qof walba wuxuu leeyahay awood uu ku bedeli karo noloshiisa. Farqiga u dhexeeya dadka guulaysta iyo kuwa quusta badanaa ma aha caqli badan ama hanti badan. Farqigu waa in dadka guulaystay ay sii wadeen dadaalkooda marka dadka kale ay joojiyeen. Haddii maanta lagu sheego inaadan waxba noqon karin, ha murugoon. Haddii lagugu qoslo markaad ka hadasho riyadaada, ha niyad jabin. Haddii aan cidina ku taageerin, ha joojin socodkaaga. Xasuusnow in guushu tahay jawaabta ugu wanaagsan ee aad siin karto shakiga dadka. Waxaa laga yaabaa in maanta lagu dhayalsanayo, laakiin berri waxaad noqon kartaa qofka ay dadka kale tusaale u soo qaataan. Waxaa laga yaabaa in maanta lagugu yiraahdo ma awoodid, laakiin berri waxaad gaari kartaa meesha aysan xitaa filaynin inay ayagu gaaraan. Marka aad dareento niyad jab, dib u xasuuso sababta aad u bilowday. Dib u xasuuso riyadaada iyo himiladaada. Ha u ogolaanin hadallada dadka kale inay dilaan rajadaada. Waxaa laga yaabaa inaysan dhammaanteen helin taageero badan, laakiin dhammaanteen waxaan heli karnaa geesinimo aan ku sii wadno jidkeenna. Ugu dambayn, xasuuso hal arrin: qofna kuma aaminsana ilaa aad guulaysato. Sidaas darteed, waqtigaaga ha ku lumin inaad dadka qanciso. Halkii aad hadal badan ku bixin lahayd, dadaal badan geli. Halkii aad dood gelin lahayd, shaqee. Maalin maalmaha ka mid ah, guushaadu waxay noqon doontaa caddaynta ugu weyn ee awooddaada. Guushu waxay ka bilaabmataa maalinta aad naftaada aaminto, xitaa marka aysan cid kale ku aaminsanayn.